Assalaamu calaykum. Waa muuqaal cusub oo aynu ku eegi doono maskaxdii Camar bin Caas. Ilaahay xikmadiisa waxaa ka mid ah in uu dadka u kala duway garaadka iyo garashada, maskaxda iyo maanka, oo uu qaar ka dhigay kuwa fahamkoodu sarreeyo, sidoo kalena lama furaanada iyagu kala quba, halka kuwa kale aanay fahmin waxyaabaha iska bilowga ah ee carabka lagu ballaariyo mooye wax kale. Saxaabiga weyn ee Camar bin Caas waxaa lagu tilmaamaa in uu ahaa qofkii carab ugu maskaxda badnaa. Cumar bin Khataab ayaa marka uu arko qof aanay hadalka iyo aftahamada isku fiicnayn, waxa uu odhan jiray, Ilaahay baa xumaan ka dheer, Ilaaha kan abuuray waa Ilaaha Camar bin Caas abuuray. Waxa ay taariikhdu qortay sheekooyin badan oo caddaynaya maskax badnidii Camar bin Caas, kuwaas oo ay ka mid tahay in maalin maalmaha ka mid ah ay qabteen Camar bin Caas niman burcad ah, kadibna ay qaateen oo kaxaysteen oo qafaasheen iyaga oo raba in ay dilaan. Waxaana uu Camar bin Caas nimankii ku yidhi, war ha i dilina, xanuun baa aan qabaa, oo haddii dhibic dhiiggayga ka mid ahi ay dhulka ku dhacdo, dadka oo dhammi waa ay xanuunsanayaane. Haddana waxa aan uga soo dhex baxay dadkii si aan keligay meel gaar ah ugu dhinto. Nimankii ayaa naxay oo si arxandarro leh u wada eegay Camar bin Caas, waxaana uu u raaciyay intaa, hadda keebaa i soo qabtay oo gacantiisa igu taabtay si uu ii raaco oo aanan dadka u sadhayn. Waxaana ay dhaheen ninkan oo ahaa guddoomiyahoodii iyo garwadeenkii iyaga watay, waana ay ka yaaceen, waayo waxa uu guddoomiyahoodu ahaa nin arxan daran oo aan cidna u nixin. Kadibna waxaa isku soo hadhay Camar bin Caas iyo ninkii hogaamiyaha ahaa, waxaana uu Camar ku yidhi, xanuunkii aan sheegayay waa maskax badnida, waxaana aan necbaystay in aad iga maskax badnaato oo aad dadka u sababto ay nabadgelyo baahidooda ku fushan waayaan. Waana uu soo weeraray, markaas ayaa uu Camar bin Caas ninkii halkaa ku dilay. Inta aynu ku kulmi doono muuqaal kale oo xiiso badan, waa Sakariya Haaruni oo idinkaga tegaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.